saxaafadda caalamku u aqoonsay World Press Freedom Day la yiraahdo suxufiyiinta Soomaaliyeedna maanta halkan ayay isugu yimaadeen iyadoo xaaladdu ay adag tahay oo xilli cudur dilaac uu jiro waxa halkan aad ku arkaysaan inay isugu yimaadeen oo ay ku midaysan yihiin press release kan ururka shaqada suxufiyiinta Soomaaliyeed ee FESOJ dalada Sooma SWJ ama ururka suxufiyiinta gabdhaha Simha oo halkan maanta aan marti ugu nahay iyo sidoo kale SJS ururka suxufiyiinta SJS dhammaan waxay ku midaysan yihiin dhamaantood in ay maanta u soo baxaan sidii warkan ay u gaarsiin lahaayeen cabashada ummadda Soomaaliyeed xilli adaga lagu jira warbaahinta Soomaaliyana waxa hoos u dhacay hab xorriyatul qowlki waa sida la sheegay ama halkan laga aqriyay waxa aad sare ugu kacay xarigii cagajuglayntii dhibaatayntii wariyaasha sida daraadeed annagoo midaysan waxaan muujinaynaa inaan ka xunnahay sida ummadda Soomaaliyeed wariyaasha Soomaaliyeed u shaqeynay ummadda had iyo jeer loo dhibaataynayo iyadoo aan loo soo maraynin sifo sharci ah waxa war laga waayay madaxdii Soomaaliya waxa lagu jira xilli cudur dilaac uu jiro ilaa hadda warbaahintu ma aysan helin in ay madaxweynaheeda su'aalo weydiiso in ay ra'iisul wasaaraheeda su'aalo weydiiso gudoomiyaha baarlamaanka inay su'aalo weydiiso xagee mareen hadda adduunkuna oo arkaysaa meelaha qaarkood madaxda xaaladaha jira awgood dadkoodu waxay had iyo jeer ay warka siiyaan maalinle annaga isbuuc lama bille حتى هالمران لا نهاي النجا مركه هير كاسي نجا مريسا وحرمنا إن ور له وحرمنا نجا دولة ديد مني هنا وحنا هاي ضد Soomaaliyeed oo raba in dalka dawladnimo uu gaaro laakiin waxaan aaminsanahay saxaafad madax banaan inay dalkan horumar gaarsiin karto saxaafadiyana caburin lagu haya dhibaato lagu haya sida daraadeed waxaan rajaynaynaa sanadkan sanadkiisa xiga in xaaladdu ay wax iska bedeli doonto aad iyo aad